إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم. إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم إذا ساء حالي وضاق الفضاء وجدتك يا رب فيما ألم. عطاياك فضل ورحماك جود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة البروج. سورة دني أيضا سورة مكية، waxay soo degtay hijradii nabiga sallallahu alayhi wasallam ka hor bay iyaduna soo degtay. waxay ku saabsan tahay oo inteeda badan ka hadlaysa qiso cajab badnayd. niman gaala ahaa oo madax ahaa oo dhul ka talin jiray oo dad mu'miniin ah oo ilaahay rumeeyay intay qabteen dab ku guray. qiso dheer bay ahayd. xadiidka muxuu ahay muslim iyo tirmidhi yaa soo saaray min xadiisi suhayb. waa qisada saaxirka iyo raahibka la yiraahdo. yani nin waxaa jiri jiray madax ah, nin madaxa jiri jiray. qisada marka la soo gaabiyo, ninka madaxda dhul buu madax ka ahaa, gaal lagu ahaa. nin marka wuxuu laan jiray niman culimo ahoo sixirka u qaabilsan. ninkii sixirka u qaabilsanaa baa marka da'oobay oo duqoobay. ninkii madaxda uu tagay warwaan daqoobay, nin dhalinyaro ah oo aan cilmiga sixirka ku baro oo iga qaato iga dhaxla oo booskayga gala ii keen. wiil yaroo fariid ah ayuu ninkii boqorka soo qabtay. wiilkan sixirka barbuud. wiilkii yarka marka sheekhiisa saaxirka buu u tagaayo darsiga ka soo qaata. subaxdii uu soo noqdaa, xaafadoodan ku soo noqdaa. suu sidaa u ahaa oo marna u sii socday marna u soo noqonay ayuu maalintii dambe dhexda isagoo socda ayuu wuxuu ku soo baxay nin raahib ah, nin iska duur galo wadaad ah oo meel intuu samaystay meel ilaahay ku caabuday cidla ah. ninkii buu ku leexday wiilkii yaraa. ninkii buu wax ka dhageystay, waa ku qancay. ninku tawxiid iyo ilaahay iyo khara iyo waxbuu ka hadlayaa. wiilkii yaraa wixii buu ku qancay. wuxuu sameeyaa marka maalin walba markuu darsiga u sii socdo, intuu wadaadkaasi duurka ku jira intuu la yara fadhiisto darsiga ka dhageysto buu saaxirka u tagaa. saaxirku waa garaaca marka, xageed ku soo daaday? waa la tumaa. markuu soo noqdo oo uu ka soo noqdo darsiga saaxirka oo uu u soo noqdo muxuu ahay xaafadiina, iyadana wuu la yara fadhiistaayo uu ku yara daahaa. xaafadii baa haddana garaacda. wariya xageed ku soo daaday? darsigii baa maantana lagu dheereeyay. cabaar buu saa ku jiray oo gurigana la garaacay, markuu wadaadka saaxirka u tagana uu garaacay. wiilkii maalintii dambe isagoo saa u socdo jidka haya ayaa wuxuu ku soo baxay jidkii dadku marayeen xayawaan aad u weyn oo jidka fadhiya oo dadkii ay mari laayihiin. ma libaax baa ma wax kale, allahu aclam. markaasuu intuu dhagax yar qaatay, dhagax intuu qaatay buu wuxuu yidhi maantaan kala ogaanaya wadaadkaa duurka ku jira inuu wuxuu haysta saxya iyo kan saaxirka ah ee sixirka i baraya wixiisu inuu saxsan yahay maantaan kala ogaanaya. markaasuu intuu dhagaxii qaatay buu yidhi ilaahayow haddaad wadaadkaasi raahibkaa wixiisa jeceshahay oo saaxirka ka jeceshahay maanta dhagaxa ku dil daabadda baasha dadka hortaaga. dhagaxii buu tuuray, mise baashi waa ku dhimatay. markaasuu ogaaday saaxirkan iyo wuxuu wataba inuusan waxba ka jirin.
bas sidii buu arrinkii saaxirkii kaga baxayo ilaahay buu rumeeyey wiilkii wuxuu noqday wiil cajab badanoo ilaahay wuxuu baray cudurrada yani wax weeyaan waaweyn ee khatarta ah sida baraska iyo wixii la mid ah daawooyintoodu waa alla baray waa ducaynhayaa waa uu daawoobaya maalintii dambe waxaa dhacday nin madaxweynaha ama boqorka la fadhiisan jiray oo dadka ka agdhow ahaan jiray oo indhala ah ayaa waxaa lagu yidhi war wiil yaroo waxaa jira dadka indhaha la daaweeya war bal ii geeya waa u tegey wuxuu yidhi niyow indhahayga inaad ii soo celisaan rabaa indhahaad soo celisaa baa la yidhi indhaha ii soo celi war anigu indha ma soo celiye ilaahay baa indhaha soo celiyey haddaad ilaahay rumayso ilaahay baan kuu baryay indhahana waa lagu soo celi insha Allah ilaahay rumee ilaahay baan rumeeyey buuri haddaaban indhahayga helay siduu ilaahay ku rumeeyey wiilkii yaraa ilaahay buu u baryey indhihii baa fad indhihii baa u soo noqday waaba kanba si fiican buu wuxuu arkay ninkii boqorka ahaa buu u tagayoo golihiisii iyo xafiiskiisii buu tagayoo isagoo wax arkaya war indhaha ayaa kuu soo celiyey rabbigay baa ii soo celiyey maanaa kuu soo celiyey ilan isagaa rabbi isaga dhigi jiray mugta maanaad iga wadaa war mahe rabbigay baa ii soo celiyey oo ma rabbi aan aniga ahayn baa jira rabbigay iyo rabbigaaguba waa allah buu ku yidhi cajab war waxaan ku soo galay xaggee ka yimi wuu qabtay oo wuu ciqaabay marka xageed ka keentay buu fikirka wiilkii yaraa buu markii la tumay oo la garaacay oo la karbaashay buu wiilkii yaraa wiilkana ay baray buu wax wiilkii yaraa baa la qabtay waxa la yidhi sheeg meeshaad ka keentay fikraddan isagiina waa la yara wuxuu ka fursan waayay inuu wadaadkii raahibka ahay duurka ku jiray inuu u geeyo yidhaahdo wadaadkana ay baray wadaadkii baa la soo qabtay isaga lagama hadlinina waa la dilay kow kii baa la yidhi ka noqo isagana wasiirka ahaa kama noqonayo yidhi waa la dilay isagana wiilka yarkaa marka isaga lix jeclaa laga qabaayo layskama dilayo ilan cilmigii sixirku xambaarsan yahay moogta waxoogaa waa la yaraa loo yara caga juglaynahaya waxaa la rabaa in laga soo celiyo isagoo nool waxoogaagiisa waa la ilaashan wuxuu yidhi ninkii madaxda qaadoo intaad buurta heble la yidhaahdo saartaan wiilkan korkeeda markuu joogo ka noqo dhaha war ka noqo fikraddan hadduu ka noqon waayo halkaa ka soo tuura hadduu ka noqdona ii soo celiya buurtii baa la saarayo meeshii markuu saaran yahayba wuxuu yidhi allahumma kfiniihim bimaa shiita ilaahu kuwan waxaad doonto isticmaalo ilaahu iga kaafi wuxuun igaga kaafi buurtii unbaaba ruxruxatay oo gilgilatay oo iyagii oo dhan baa daatay keligii baa soo hadhay muusan iska cararine meeshii buu ka soo lugeeyey markaasuu ninkii madaxda ahaa boqorkii buu xafiiska ugu soo galay waraawe dadkan kuu soo dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey buu dadka kuu dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey haddana intuu qabtay buu qolo kale u dhiibay wuxuu yidhi intaad doon qaadataan ood badda la martaan badda bartamaheeda markaad maraysaan waxaad tidhahdaan waryaa ka noqo hadduu ka noqon waayo badweynta ku tuura ka soo noqdo hadduu ka noqdana ii soo celiya meeshii badweynta bartankeeda markay marayaan buu sidiisii oo kale ilaahay baryay allah ilaahu iga kaafi buu kuwan doontii unbaa ruuxatay iyagii baa daatay keligii baa doontii ku soo hadhay iskamuusan cararin waa nin dan leh doontii buu dib u soo kaxaystay suu soo socday buu u yimid boqorkii war aawi dadkan kuusii dhiibay ilaahay baa iga kaafiyey buu wuxuu yidhi ma rabtaa inaad idisho ima dili kartid buu horta waxa aan haddaad rabto inaad idisho saan rabo yeel buu yidhi anaa kuu sheegi saad igu dili lahay haye horta dadka dhan soo shiri buu yidhi meel bannaan oo ban isugu keen haye anigana anoo xidhxidhan oo daldalan isoo istaaji leebka iyo qaansada markaad isa saarto waxaad tidhaahdaa bismi illaahi rabbi alghulaam alla magiciisa allihii wiilkan yarkaa rabbiga u ahaa magiciisaan ku ganayaa dheh kadibna leebka saa iigu gambuy waad idili markaa dadkii buu soo shiriyey meel bannaan baa laysugu yimid wiilkii buu soo xidhxidho isagoo xidhxidhan keenay bismi illaahi rabbi alghulaam waa ganay
halkaa dhafoorkaabuu kaga dhacay leebkii wiilkii waa dhintay wax alla wixii meesha yimid oo dhan baa hal mar waxay yidhaahdeen aamanaa birabbi alghulaam wiilkaa yarkaa rabbigii baan rumaynay been baad nagu haysatay iyo darabullaan waxba ka jira ku beeninay bay ku dheh rabbigii kownkan iska lahaaya wiilkaa yarkaa rabbiga u ahaa baanu wada rumaynay waa fashilmay ninkii marka boqorka xaajadii waa qadhaaraatay Soomaa dadkii hoostiisa ka baxeen ilaan beenbu marka hore ugu haystay markaasuu wuxuu amray wadooyinka dhinacyahooda dhan godad waaweyn ha laga qodo dabna ha lagu shido mudda dabkii la shiday dabkii markuu karay oo dhuxulaystay oo holcay ayuu yiri dadkii saf soo galiya dabka korkiisa markuu ruuxu taagay waxa tiradan ka noqo hadduu ka noqon waayo dabka ku rida hadduu ka noqdana soo celiya dadkiibu dabkii ku guray isagii iyo madaxdiisii iyo wasiiradiisii iyo dawladdii meesha la fadhiyaa kuraas baa la soo dhigtay oo dadka sida loo cadaabayo ee dabka loogu daadinaya la daawanaya dadkii baa dabkii lagu guray ayaguna waa adkaysteenoo cadaab aakharo mid adduunyada ka doorteen Sooma waa isku gureen ilaa markii ugu dambeysay haweenay ilmo yar dusha ku sidata ay dabkii ku soo beegantay markaasay naftu siin weyday dib ay u istaagtay ilmaheedii yaraa ay dhabarka ku siday baa la hadlaa wuxuu yiri hooyo xaq baad ku sugan tahay dabka isku tuur markaasay dabka isku tuurtay dhacdada iyada ah oo dad mu'miniin ah oo Ilaahay rumeeyay inay Allah rumeeyeen loo gubay bay aayadu ka hadlay suuradu ka hadlaysaa marka nimankaasi waxay sameeyeen oo dadka mu'miniinta ku sameeyeen iyo ma dambi bay galeen maxaa saa loogu galay iyo maxaa ka dhalan doona taas laga hadlay was-samaa'i samadii baan alla ku dhaartay buuri samadii daatil buruuji boosaska u saaxiibka ah buruujta waxa la yiraahdaa waa manaasisha qoraxda iyo dayaxa iyo xidigaha iyo meelaha ay degaan ilan kolba meel bay fadhiyaan Sooma sodadii dayaxa meedaan arkin habeenba meel buu fadhiyaa qoraxdu kolba meel bay fadhidaa daruuruhu kolba meel waxaan u jeegaa xidiguhu kolba meel bay fadhiyaan boosaska ay fadhiisanayaan baa waxa la yiraahdaa buruuj la dhahaa samadii baan ku dhartay daatil buruuji ee boosaska u saaxiibkayd manaasisha u saaxiibka wal yawmi maalinki baan ku dhaartay al maw'uudi ee la yaboohay maalinka la yaboohayna waa maalinka aakhiro ilaan waa la inoo yaboohay waa ballanqaad Sooma wa shaahidin baan ku dhaartay ku goob jooga oo xaadir ah wa mashhuudin iyo ku la xaadiray ku xaadir ah iyo ku la xaadiray maxaa laga wadaa macaani kala gidsan bay culimadu ku fasiraan xadiis baa jira Abu Hurayra oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam al-yawmul maw'ud yawmul qiyamah maalinta la yaboohay waa maalinta qiyaamada wal yawmul mashhuud yawmu arafa maalinta la xaadir mashhuudka la xaadirayana waa maalinta arafa والشاهد يوم الجمعة شاهدكنا ومالنت الجمعة معناها هذه حديث كان سيدا نقضه علماء قاربا صحيحين يعني معنوه نقول يا وشاهد كو حاضري بان محوها يكو دارتي ومالنت الجمعة أما الشاهد مد مرخاتي فري ومشهودنا ومد حاضري ومالنت قيام مالنت عرفون نقول إلا مالنت عرف وحا حاضري انتي حجينيسي iyo malaa'iktii iyo rabbi oo samada soka iimaanaya marka waa yawm mashhuud yawm mashhuud waxa kale oo la yiraahdaa waa shaahidin wa mashhuudin macna ka guda weyn oo waxa la yiraahdaa mid kasto xaadiray iyo mid kasto la soo xaadiray adduunyo aakhiro oo dhan meel jiraba waa laga wada intaas oo dhan baan ku dhaartay rabbi tabaaraka wa taala ee qutila waa la lacnaday ashaabul ukhdudi jeexjeexdiyada ama jeexjeexiyada asxaabtood waa la lacnaday ukhduudu waa jeexdimihii ay ku sameeyeen jidadka dhinacyahooda Soomaynade ee dadka ay ku gurahayeen ukhduuda taas la yiraahdo qutila waa la lacnaday ashaabul ukhdudi jeexjeexiyalka asxaabtoodii kuwii jeexjeexiyada u saaxiibka ahaa ee dhulka jeexjeexay godadka ka sameeyay kuwa waa la lacnaday annaari naarta u saaxiibka ahaa naarti daatil waqudi wax lagu huriyo u saaxiibka ah
waxaa la yidhi jeexjeexdimay u saaxiib ahaayeen dabna u saaxiib bay ahaayeen dabkaasina wuxuu u saaxiib ahaa oo isaguna watay wax lagu huriyo waquudka waa wax lagu huriyo waa shidaalka qoryo fara badan iyo wax dabka shida oo aad u fara badan bay ku gureen marka dab holcayo aad u weyn buu ahaa id waqti baa la lacnaday hum iyagu calayhaa dabka korkiisa qucuudun kuwa fadhiya ay ahaayeen yaa dembiga haba galeen oo khaladka ha sameeyeen oo mu'miniinta haba cadaabeene hadday haddana ka maqnaan lahayn waxbay ahaan lahay inay meeshii haddana soo fadhiistaan oo wixiiba ay filin la daawanaya ka dhigtaan iyo riwaayad ka dhigtaan waa dembi kaloo siyaada id waqti baa la lacnaday hum iyagu calayhaa naarta korkeeda qucuudun kuwa fadhiya ay yihiin wahum iyagu calaa maa yafcaluuna waxay samaynayaan bilmu'miniina mu'miniinta waxay ku samaynayaanna shuhuudun ay markhaatiye ka yihiin waxa ay dadka ku samaynayaan iyo cadaabkii dabkay ku gurayaanna markhaatiye goobjoog bay ka yihiin wamaa naqamuu ma ayna qoonsanin oo mayna kahanin minhum mu'miniinta xaggooda ilaa an yu'minuu inay rumeeyeen mooye billaahi alle allihii alcasiizi ee qaalibka ah alxamiidi ee la mahadiyey allaha mahadsan ee awoodda leh ee casiiska ah allaha inay rumeeyeen mooye wax kaloo galeen ma jiro maxaa kaloo lagu qoonsaday oo maxaa kaloo lagu dhibsaday oo maxaa lagu cuquubeeyey dembiga loo hayo ee loo gubay waxa weeyaan loo cadaabayo allaha casiiskay rumeeyeen oo ma dembi baa taas soo wixii laysku ikraami lahaa oo laysku sharfi lahaa ma ah wixii qiimaha lahaabaa agtooda dembi ka noqday saas way macnaa sida qur-aanka meelo kaleeto alla ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala dadka oo ahlulbaatilka gaalada iyo wixii la mid ah ilaan khayrkii iyo wanaaggii baa agtooda dembi ka ah isagii baa marka dembi lagaaga dhig lagugu soo oogi oo lagugu xidhi oo lagugu cadaabi oo lagugu dacaayadayno waaba saasba nimankii la dhihi jiray qowmu luut nabiyullaahi luut calayhi salaam markuu ku yidhi war qashinkan aad samaynaysaan ee akhlaaq xumada ilaan raggay dumar ka dhigan jireen war waxaan iska daaya markuu yidhi waxay yidhaahdeen akhrijuuhum min qaryatikum innahum unaasun yatatahharuun magaalada ha laga saaray dheh iyo deegaankiina oo maxaad u eryanaysaan waaba niman isdaahirinahayaba oo ma in la isdaahiriyaa dembi ah in la isdaahiriyo ma dembi baa ninka xun agtiisa dembi bay ka tahay nin nadiifa ma arki karo soo ma ilaan isagii baa wasakhaysane ninka kaba hala bay Soomaalidu yiraahdaan dadku inay wada kaba beelaan buu rabaa ka jiranna inay la wada jiradu jecel yahay soo ma ka wasakhaysan in la wada gaalku in gaalo la wada noqdo jecel yahay marka waxa weey waxay kula dagaalamayaanba waa iimaan alla ay rumeeyeen bas waa wama naqamu mayna qoonsanin ama mayna kahanin minhum mu'miniinta xaggooda illa an yu'minu inay rumeeyeen mooye billahi alla inay rumeeyeen wax kale mayna ku qoonsanin oo mayna kahanin allihi al-azizi al-hamid azizka ghalibka ay la isku taagi karin al-hamid ee mahadsana mar walba alladhi allaha soo lahu isaga uu sugnaaday mulku samaawaadka mulkigoodii wal ardi dhulka mulkigiisa wallahu allana ala kulli shay'in shay kasta korkiisa shahiidun wa kuku markhaati ah yani allah ay adoomadiisa saa u galayaan horta waa midka awoodda leh samaawaadka iyo dhulalkaba milkigooda leh haddana mid maqan ma ahe waa mid goob joog oo la socda waxay sameynayaan bal nimanka indhaaday gooda fiiri alle awliyadiisi awoodda lahoo sama iyo dhulba wixii dhexdooda yaalla iska leh haddana aan ka qarsoonayn waxay sameynayaan la socda allaha adoomadiisii bay saa u galayaan inna alladheena kuwa fatanuu cadaabay oo fitneeyay almu'miniina mu'miniinta ragga ah walmu'minaati iyo mu'minaadka dumarka ah kuwa cadaabay oo ciqaabay thumma kadibna lam yatuubuu aan ka soo noqonin oo sidaa ku dhintay falahum waxaa u sugnaaday cadaabu jahannama cadaabkeeda u sugnaaday walahum waxaa u sugnaaday cadaabul xariiqi gubidda cadaabkeeda u sugnaaday cadaab gubahaya iyaga iyo jirkoodaba oo baabi'inaya leeyahay kuwaasi waa kuwii mu'miniinta muxuu ahaay dhibka u geystay ilaahay tabaaraka wa tacaala waa dulqaad badan yahay laakiin ha dulqaad badnaadee markuu cadowgiisa uu qabto markaasi mana sii daynayo wixii uu mudnaana wuu marinaya soo ma ilaahay dulqaadkiisa waxaa ka mid a nimanka sidaa u galay ehelkii alla awliyadiisii iyo mu'miniintiisii isaga dartiina u cadaabay
buu alla wuxuu leeyahay uma lam yatuubuu aan soo noqonin ayagoo waxaa sameeyey haddana hadday ka soo noqon lahaayeen ilahay waa ka aqbali lahaa soo ma laakiin haddayna ka soo noqonin oo sidaa ku dhinteen ayagoo isla quman haddama war baa yaalla ina aladiina kuwa fatanuu cadaabay oo ciqaabay almu'miniina ragga mu'miniinta walmu'minaati iyo dumarka mu'minaadka uma kadibna lam yatuubuu aan ka soo noqonin arrinka oo ku dhintay falahum waxaa u sugnaaday cadaabu jahannama jahannama cadaabkeeda walahum waxaa u sugnaaday cadaabulxariiqi cadaab waxgubana way leeyihin cadaab waxguba oo jirkooda gubi doonana way leeyihin ina aladiina kuwii iyaga la dhibay see xaggay ku dambeeyeen kuwii saa loo cadaabay ee dabka lagu guray ayaga xaalkoodu xaggee ku dambeeyey ina aladiina kuwa aamanuu rumeey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday jannaatun jannooyin bay leeyihiin beere aseendooyin ah jannooyinkaasoo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru webiyaashu ay qulqulayaan dalika kaasina alfawzu waa liibaantii alkabiiru ee weynayd waa kuwaa la cadaabay cadaabkii la cadaabay ee dabka lagu guray halkaasaaba dhib ugu dambaysayba adduunkiiyo dhibkiisii waa ka nasteen soo maaragti waxay u gudbeen ilaahay jannadiis iyo beero waaweyn iyo webiyaal qulqulahayoo kala gedisan naxariis alle halkaasayba aadeenba kii iyaga cadaabayna naar buu aaday ayagiina xaggay ku dambeeyeen janno rabbi bay ku dambeeyeen waa waxoogaaga yarkee marka dhibkee la mariyey ilaahay maadaama diintii alla lagu dhibay oo ilaahay dartii loo cadaabay ilaahay tabaaraka wa tacaala ajirkooda ma dayacayee jannooyinkaasuu yuuga dhigay abaalgud uga dhigay ina aladiina aamanuu kuwa rumeeyey wacamiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wan wanaagsan lahum waxaa u sugnaaday jannaatun oo tajri ay socoto min taxtiha hoosteeda alanhaaru wabiyaasha dalika kaasaana alfawzu liibaantii alkabiiru ee weynayd liibaanta weynna waa taas adduunyo ama dhibanow ama dheef ku hayso ama ha lagu dhibo ama ladnow liibaanteeda haddaad waxaysato xataa waa wax kooban soo maha laakiin liibaanta weyn waa taas waay ayb waa liibaaneen ina badsha rabbika rabbigaa qabashadiisu la shadiidun waa mid daran innahu alle huwa isagu yubdi'u waxbuu bilaabaa khalqiga isagaa bilaaba wayuciidu wuu soo celiyaa isagaa khalqiga soo celiyoo dib u soo celiya wa huwa isagu alghafuuru waa midka dhaafidda badan oo addoommadiisa dunuubtooda dhaaf alwaduudu addoommadiisana jecel jecel wuu jecel yahayoo markay xumaanta ka soo noqdaan wuu jecel yahay khayr buu la jecel yahay jannuu la jecel yahay xumaantuu la necab yahay alwaduudu waa midka jecel addoommadiisa dul carshi weeya midka carshiga u saaxiibka ah carshigu waa makhluuqa ugu sarreeya makhluuqaadka allana isagu ka sii sarreeya samaawaadka toddobadaa marka la dhaafo saanqaafka kor ka sii ah waa carshiga carshiga makhluuq ka sarreeya ma jiro makhluuq ka weynna ma jiro carshigaasi makhluuqaadku alla abuuray ayuu ugu sarreeyaa allana tabaaraka wa tacaala yaa iska leh dul carshi allihii carshiga u saaxiibka ahaa waa oo makhluuqa intaa la eg ee qiimahaa leh ee sharaftaa leh isagaa iska leh saas weeyaan almajiidu weeye alla tabaaraka wa tacaala waa ku weyn oo wanaagsan almajiidu waa midka sharafta le waay allihii baa la sifaynaya carshiga u saaxiibkaa almajiidu ee sharafta leh ama dul carshi midkii carshiga u saaxiibkaa weeye almajiidu carshigii almajiidi haddii la akhriyo jiidi sidaana waa qiraa'o carshigii markaa u noqonaysa oo carshigaa sharafka yeelanaya almajiidu waa sida hadda inoo qoran oo xafsaha oo qiraa'ada hadda aynu akhriyaynaa waxay u noqonaysaa alle oo waa sifaadkii alle ee la sheegayay mid ka mid allihii almajiidu ee sharafta lahaa saas way macnaha weynaa ee sharafta ee kariimka ahaa facaalun weeye alla tabaaraka wa tacaala midka samayn badan limaa yuriidu wuxuu doonayona midka samaynta badan waay wuxuu doonayo inuu sameeyo alle wax ka hor istaagi kara ma jiro samayntiisuna dhibba ku qaadan mayso oo wuxuu uun dhihi ahaw kun ahaw fayakuunu waa ahaanaya marka facaalun limaa yuriid waayo wuxuu doono mid samayn badan way samayn og waay allah tabaaraka wa allahaasi qabashadiisu waa mid adag way inna badsha rabbika rabbiga qabashadiisu la shadiidun waa mid adag waxaa laga wadaa
الله تبارك وتعالى أدومده وأسيت الديرينيا وأدل قادنيا وأسجيا لكن مركي نقطة إنه قبته أو عقوبيه أو عذابه مركاسي هوشي سوى أذكته صبا قبل شديد سوى أذكته أيوه مسألنا إنه هو إسقو يبدئ وامدك مخلوقاتك بالله مخلوقاتك أبور كودي إسقى بالله ويعيد إسقى سوء مخلوقاتك أسقى دبو سوء يا مركي بابا آن كدب أبور كودي دبو سوء بالله بستنا إسقى إسكال سوء تنا إسقى إسكال وهو إسقو الغفور وامدك رافض بدن الودود أدومدي سجعل إسقنا أي تشعليهن هو استعليسينا ولا ده nicmooyinka uu siinayo buu isku jeclaysiinaya taana waa la dhaata waraaka fiican allihi dhul arshi wa huwa isagu dhul arshi wa yamidka arshiga u saaxiibka al majid allihi sharaf kala hawa fa'alu wa yamidka samaynta badan ama samaynta oglima yuriidu wuxuu doonayana sameeyo way oo aan la hor istaagi karin sifadaas cid kale ma leh makhluuq wuxuu doonaba samayn kara miyaa jira wuxuu rababa ay u hirgeli karo maya مخلوقات كميتك ugu awooda badan sidoo rabo wax uma sameyn karo wuxuu rabana ma sameyn karo wuxuu alla rabo oo uu ogolaado uu sameyn kara Sooma Allah tabaaraka wa ta'ala isagu wuxuu rabo sidoo rabo u fulaya fa'alu lima yurid hal ataaka makuyimid hadithul junudi ciidamada warkoodi makuyimid fir'aun warkiisi makuyimid wa thamud iyo thamud warkeedi makuyimid alla inuu wuxuu doono sameeyo markuu cuquubadiisu timaadana oo adag tahay cuquubadiisu iyo qabashadiisu midaal baa lagu siiyay ma ku soo gaaray fircoon warkiis reer thamuud warkoodii ma ku soo gaaray ciidamadaasi sidii loo galay ee loo baabiyay warkooda ma haysan ya warkooda qaybo kamida quraanku waa faahfaahiyay Sooma fircoon baa qayb ka soo sheegnay Sooma marka Allah tabaaraka wa ta'ala reer thamuudna waa u yarakaadiyay way daaqeen fircoonna waa loo seeta dheereeyo waxoogaa baa loo kaadiyay way ismahadiyeen الله تبارك وتعالى مركو أسيت ديريو اسمه هذيا كذبا هل مربع لقبت مركا وحويان هل أتاك مكويمت ننكستو مركا عيدما يأود يشيكتا وربي يعني حق كهرتك أود اسبداي وحوغا أم بالو يركاديني كذبنا ميلو زنفيلين بالقبت أدونك هذا وحيالها كده عي مركا هذا وفير ستان والدروس عجائب بدون madaxdii 30 sano 40 sano 50 sano kibirkooda isqaadqaadkooda adoomada adoonsaday oo khalqiga baabiyay habeen ba ilaahay tabaaraka wa taala qadartiisa umba cagta la marino aw xusn mubaarak iyo qadaafi iyo muxuu ahaay kii zaynul aabidiin la dhihi jiray iyo kii ali abdullah saalax iyo aaway nimankii adduunka haystay aaway ya meel fog ba loogama imaaninba dadkii oo ay dusha kaga fadhiyeen sida dameeraha u raranayeen umba hal mar lagu kiciyay kabtayda maaragtay ba ka dhacday ya marka rabbiga markuu rabo inuu wax qabto waa dulqaad badan yahay laakiin markuu rabo inuu wax qabto meel aadan filaynin baa lagaaga soo bixi waana adag tahay qabashadiisu hal ataaka makuyimid hadithul junudi ciidamada wararkoodi fir'aun warkiisi makuyimid wa thamud iyo thamud بل الذين كوي كفروا قالوا بي في تكذيب بينين بي كدح سغين وكوي النبي محمد لا جوغي هو كلبا بينين بي اسغا سغين waa badiidayn wixii oo cad bay hadana diiday wallahu allana min waraa'ihim gadaashooda muhiitun mid kasoo koobay waay gadaashoodu kasoo koobay waxa laga wadaa bimaana ayagu waa beeninayaan waa madax adayga waxoodo dhanna ilaahay waa la socdaa wallahu min waraa'ihim gadaashooda muhiitun mid koobay way oo ka soo koobay dhinacyadoo dhan baa laga jiraa waay dhinacay u fakanayaan ma jiro meelay u baxsan karaan ma jiro dhinac walba waa laga jiraa saas way macna bal iska wadhaafay huwa isagu qur'aanun wa qur'aan huwa qur'aanku qur'aan way majiidun oo sharaf leh qur'aankana ay beeninayaan diidayna lagu kari laaye waa qur'aan sharaf leh wa hadal Allah tabaaraka wa ta'ala hadal makhluuq ma وهذا الكربيين وصفة ربيين وقرآن شرف له وقرآن حق وحكى الله ينا حقيه وقرآن مصلحة بل هو قرآن ومجيد أو شرف له في لوح
loox dhexdii buu ahaaday maxfuudin oo la xifdiyey qur-aankani xaggee ku yaallaa wuxuu ku yaallaa loox la xifdiyey oo la ilaaliyey dhexdiisuu ku yaallaa looxa la ilaaliyey maxaa laga wadaa waa diiwaanka weyn ee wax walba ku qoran yahay ilaahay agtiisa yaalla waay qur-aankani halkaasuu ku yaallaa waa hadalkii rabbigeen halkaasuu ku qoran yahay halkaasaa laga soo guuriyey malakul jibriil baa loo soo dhiibay nabigeennu saa ku soo gaadhsiy looxaasi muxuu maxfuud ka yahay looma dhowaan karo soo ma wax lagama bedeli karo shayaadiintu ma dhowaan karto marka waa ilaashan yahay looxaasaa marka qur-aanku ku yaallaa qur-aan halkaa ku yaalla oo sharaftaa leh oo qiimahaa leh intuu u yimaado inay beeniyaan oo ku gacan saydhaan alaalaahi taasi waa dulinimo wey macnaha bal huwa isagu qur'aanun qur'aan weeye majiidun oo sharaf leh fii lawxin loox dhexdii buu ku sugan yahay maxfuudin oo la xifdiye looxa waa alwaaxda waay innaga soo loox ma dhahno looxda kan aan qur-aanka ilmaha ku qortan soo loox ma dhahno waa alwaaxda waay alwaaxda muxuu ahaayey ayaa looxa la yidhaahda waxaana laga wadaa loox haba ahaato oo alwaax ha ahaato laakiin waa diiwaan weyn oo ilaahay wax walba uu ku qoray waay wixii dhacay iyo wixii dhici doonaba kutubtiisa uu soo dejiyeyna meeshay ku qoran yihiin waana xifdisan yihiin oo meeshaasay ku ilaashan yihiin hada billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi